khubaro dhanka beeraha ah oo ka socday wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka sidoo kalena ay qayb ka ahaayeen hay'adaha taakuleeya beeralayda isla markaasina horkacayay wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa kormeer ku tagay deegaanada beeralayda ee waqooyiga magaalada Dhuusamareeb halkaasi oo wafdigu ay ugu kuurgalayeen sida uu socdo dalagyada kala duwan ee ka baxa deegaanadaasi wafdiga ayaa gaaray deegaanka Dudumcade iyo deegaano kale oo ku yaala dowladka waqooyi ee magaalada Dhuusamareeb waxaana wafdigu markii halkaasi ay booqdeen ay kormeer ku sameeyeen beeraha ku yaala aagaasi Cabdullaahi Maxamuud Barre iyo Cali Aadan Cismaan waxa ay kamid yihiin beeralayda deegaanadaasi ku sugan waxa ayna ka warbixinayaan caqabadaha kala duwan ee ka haysta dhanka dalagga beeraha iyo waxyaabaha xilligan u kalifay inay deegaanadaasi ay beero ka sameeyaan aniga waxa uu kalifay waxa ugu muhiimsan waxa weeye aniga waxaan bartay waa ganacsiga horumarinta beeraha waa qaybta suuqgeynta ahaato ama qaybta in wax ay yihiin productigan uu yahay wax kala lagu daro oo value chain wax la yiraahdo loo sameeyo value added loo sameeyo waxa ay soo baxday marka inaan bal ku laabto meeshii aniga aan ku dhashay tusaale wixii aan aqoon leeyahayna aan ku kordhiyo tijaabadii aan ka bilaabo halkan waa tijaabo sanad ayaan joognaa hadda wax badan oo aanan anagu xitaa filayn ayaan ku aragnay oo ka wanaagsan sidaan filaynay expectationkeena alxamdulillah hadda wax badan oo noo muuqda laga yaabo inaysan markii hore aysan ii muuqan encouragement-ga aan qabo xilliga hore iyo hadda inuu hadda badan yahay ayaan aaminsanahay anoo beeray liima dhanaan cambe zaytuun canuuni geedo kale oo dalaq yar oo badan markaas kadib waxaan u tababushaystay inaan silig iyo tiirar xayndaab raadiyo qof igu caawiye male aniga isku tashaday wax la adigu isku tasho siligii markaan beertan ku wareejiyay iyo tiirarkii kadib ayaan hadda waxaan u soo laabtay inaan abuurkii geed miroodka badiyo sida aad haddaba arki kartaan geedaha waxay u kala baxaan geedo qaangaara oo intii hore laga ka haray iyo kuwa yaryar oo hal sano jira waxa hadda beeran oo geedo muuqda ah liima dhanaanta hadda aad arkaysaan miraha laga gurto oo agaheena ku taala zaytuun laga keenay zaytuunkan jawaafa leer dalka Soomaaliya ka baxa ma aha Itaaliya wiil iga keenay 7 xabay ahayn 2 waa dhimatay 6 waad arki doontaan xero gooni u sameeyo kuwan zaytuunkii saliid lahaa waa kan dulkan hadii la beero wax aan ka baxaynin xafid iyo ilaalin iyo biyo raba bis gudoomiyaha iskaashatada beeralayda deegaanada maamulka Galmudug Xirsi Cismaan Faarax Huute ayaa ka codsaday wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka iyo dhigeeda Galmudug in ay ka taakuleeyaan dhanka tababarka beeraha iyo agabyada kale ee la xiriira dhanka wax soo saarka beeraha noqotay waxa soo baxday inay meeshani tahay meesha ugu wanaagsan ee wax laga soo saaro haday tahay mataqaanaa sidii odayaashu hore u sheegeen nooca digirta mataqaanaa miraha digirta iyo qudaarta iyo waxyaabo badan oo kale marka waxaan leenahay adduunka ka codsanaynaa dawladda federaalka doonalka deeqda bixiya iyo maxaa tiraahdaa inta oo beer danayso dhan waxaan codsanaynaa in laga kaabo ugu horeyn abuur tayo leh tababar tayo leh biyo qalabka oo mataqaanaa beeraha lagu qoto haddii la yiraaho iyo waxyaabaha la midka ah agaasimaha sugnaanta cuntada wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka Maxamuud Yaasiin Cartan iyo khubaro kale ayaa dhankooda ka hadlay sida ay u arkaan wax soo saarka dhanka beeraha ee deegaanada maamulka Galmudug maanta waxaan joognaa sida aad aragtaan beer kamida beeraha Galmudug gaar ahaan magaalada caasimadda ee Dhuusamareeb runtii waa sida u jeedaan waa beer runtii aad u weyn waxaan joognaa maanta beer ay ku beeran tahay galey iyo dalagyo kale oo runtii aad muhiim u ah qudaarihii kamid yihiin oo maxaan ku raadayay waayada horena laga aaminsanay inay ka bixi karaan laakiin hadda la xaqiijiyay inay ka bixi karaan federaalka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee federaalka oo suurta geliyay 2 sano oo u dambeysay in iskaashi ay u kala dhaxeeyo dawlad goboleedyada oo waliba aqoontii ay ayagu ay keeneen lagu baahiyo dawlad goboleedyada oo ah barnaamijkan kamid ah barnaamijkan halkan ku joogno ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Dhiblaawe Casir ayaa sheegay in isbedel weyn laga dareemayo dhanka dalagga beeraha ee deegaanada maamulka Galmudug meeshan marka
sida maanta aad arkaysaan waxaan joognaa beertan oo runtii ah beeraha galmudug gaar ahaan dhuusamareeb aadna arki doontaan beero badan oo kale oo maanta aan igana booqan doono beertan la yidhaha daardheer runtii waxaa maal gashaday nin khubaro ah oo khabiir ah oo xagga beeraha ah oo cilmiga beeraha dibadda ku soo bartay 20 sano la soo dhaafana waxaan ognahay inay kordhaayeen in dadku ay beeraley u soo jeestaan 5 sano oo hadda aan galmudug ay dhisan tahay oo sanadkii shanaad hadda la gelayo 4 sano la soo dhaafay oo dhex taagnaa wasaaradda beeraha runtii waxaan dareemi karaa isbedel weyn inuu ka dhacay isbedelkaas oo ay sababayso fursadda koobaad oo ah in dad aqoon-yahano ah oo wax soo bartay ay ku soo laabteen galmudug state in ay soo laabteen dad beeraha wax ka yaqaana oo runtii beeraley ahaa oo ka imaanayay dhulkan webiyada leh ama beeraha caanka ku ah ka soo shaqaynayay oo ayaguna halkan maal gashanaya waxa soo jiidana waxa ugu horeeya number 1 nabadda marka labaadna waxa soo jiidaya dhulka oo biyo runtii laga helay iyo ceelashii oo dhibaato fara badan ka jirto hadda soo fuudaaday sida aad dareemaysaan hadda dhuusamareeb markii la yiraahdo biyo kale aad u dhow yihiin hadda beertan oo kale waxay leedahay ilaa 4 ceel ay leedahay bulshada ku dhaqan deegaanada dawlad goboleedka galmudug ayaa hadda si xawliya u tabcanaya beeraha waxaana bulshadu ay yihiin kuwa si fiican u fahmaya waxtarka ay beeruhu u leeyihiin dadka ayadoona beeraleyda ku sugan aaga magaalada dhuusamareeb ay yihiin kuwa si weyn u kaafiya qudaarta laga isticmaalo magaalada caasimadda ee dawlad goboleedka galmudug waxaana bulshadu hadda ay si weyn isugu dayayaan inay kor u sii qaadaan dhanka dalagga beeraha oo sanadihii dambe si xawliya uga socday deegaanada dawlad goboleedka galmudug wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha dawlad goboleedka galmudug ayaa dhankeeda wada dadaalo kala duwan oo ay kor ugu qaadayso isla markaasina ay ku dhiirigelinayso beeraleyda ku sugan deegaanada dawlad goboleedka galmudug daahir maxamuud cabdi daahir yare galmudug TV dhuusamareeb